السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأيضا السلام والله ودنيا فيكس سود هذا إن شاء الله هلكم waxaan ku duubaynaa cashir aad muhiim u ah oo rajeynayno inuu insha Allah walaalo badan caawin doono wax badan ka saacidan doono muhiimadda ma aha in macnaha jartis bas laga hadlo waxa loo baahan yahay in psychology-ga la iska dhiso waxa loo baahan yahay in discipline-ka la iska dhiso waxa loo baahan yahay in macnaha qofka mental ahaan wax loogu sheego macnaha in motivation loo sameeyo in cashiro kuwaas oo anfacayo tradingkiisa in loo soo gudbiyo marka waxaan rajeynaynaa hadduu ilaah yiraahdo janalkan inuu noqon doono janal dhinac walba wax faa'iido leh kusoo bandhigo haddii ahaan lahayd youtube-ka telegramka instagram-ka dhinac walba insha allah waxaan rajeynaynaa inaan wax faa'iido leh oo dadka caawin doona usoo bandhigi doono insha allahu halka waxaan ku qaadanaynaa cashir aad muhiim u ah kaasoo ah todobada sharci ee qofka traderka u baahan yahay ama tradingka sameynayo todobadan sharci waa todoba sharci oo aad ku caawin doonta hadduu ilaah yiraahdo waa top 7 rules for trading todoba sharci ee tradingkaaga inaad ku dabaqdid ama aad ku dhaqantid la rabo haddii aad ku dhaqantidna wax badan insha allah si ka bedeli doonaan qaabkii aad ugu dhaqmi lahayd tali iyo tusaale wax dhan insha allah waana idiin soo gudbin doono waa engineer Yasir wadani FX soo dhawaada insha allah waxaan rajeynayaa asxaabta inta badan inaan isnaqaano dadka nagu cusub soo dhawaada waxaan leenahay telegram ilaa 1,200 qof ay ku jiraan kaas oo ku midoonay walaalaheena aan ugu faa'iideyno aan rajeynayno in wax badan ka faa'iideen haddii hore aan xiisadan u sii galno waa todoba sharci waxaan rajeynaynaa insha allah inaad todobada sharci aad fahmi doontaan qaabka ugu fududna insha allah waan idinku soo gudbin doono haddii aan ka bilaabno tan koowaad taasoo ah the market doesn't care what you think suuqan waxba kama gelin waxa adiga ku fikiraysid ama shaqo kuma laha qofku waxa laga yaabaa wax walba insha allah waxaan isku dayaynaa inaan sharaxaad yar oo kooban aan ka bixino si walaalaha u wada fahmaan suuqan waa sida wada ognahay chain rule waxa lagu ku socdaa waa machine la sameeyay kaasoo la baray structure kaasna ma khilaafayo waxna kuma daraayo waxna kama dhimaayo wixii loogu talagalay ayuu marayaa tusaale ahaan haddii suuqa uu corrective sana uu ku socdo qaybta kore oo ascending ahaan uu ku socday oo suuqii ascending-ka soo dhameysanin ascending-kan dhameysanin intaad gashay halkaas trade-ka aad ka qaadatay intrigaaga markuu saas soo dhaa intaad qaadatay SL-kaagana aad halkaas ka kormarisay aad isdhehaysay ilaa 90 rule-kan la soco aad isleeyayd intaas la soco suuqan oo rabtid intaa inaad ka faa'iidaysatid waa sidii niyadaada adiga ahayd in ascending-kan waxaad u arkaysay inuu dhammaaday laakiin confirmation maada suganin oo maada dhihin ascending-ga markuu saan u socdo markuu intuu inbaad soo dhaco uu falaag siiyo ayaan ka qaadan doonaa waayo waxa aad rabtid maada garanayninba ascending baa aragtay ascending waxaa ogtahay inuu reversal pattern yahay waxaa dhacday lacagtaa way soo dhaceysaaye fomo waxa la dhahaa ku qaada fear of missing out gal ayaa is dhahday waad gashay suuqan shaqo kuma laha inaad gashay in kale asaga maba ogaba adile og inaad gashay meeshaas ka gashay asaga hooshiisuu iska wadanaa ascending-giis weli sii wadanaa uu sii dhammaystirana almost waa lagaa saarayba adiga SL-ku kaaga dhacay markaas waxaa leedahay suuqan anuu arkaa anuu imaagan yahay marka aniga gal uu dhinac kale aadaa marka horeeto dhinac kale uu socday marka aniga suuqu iga soo horjeedaa against uu igu yahay si gooni uu target igu hayaa suuqa ma garanayo sababta wax maanta dhan suuqa eedeynaysa oo suuqiya waxa ka dhigaysa inuu ka khaldan yahay suuqan qofna shaqo kama laha qof uu dan kale yahay ma laha qof uu garanayana ma laha wuxuu yaqaanaa kaliya structure-kii la baray ayuu ku dhaqmayaa structure-kii la baray baro si aad suuq iskaga dhicisid oo meeshuu aado haddii impulse uu soo sameeyo impulse waxaa la rabaa inaad meeshaas ka soo qaadatid intaas aad ka faa'iidaystid correction markuu ku jiro inaad ogtahay wuxuu sameynayo correction-ka markuu ka bixi rabo aad suuqa la socoto haddana halkaa aad ka qaadatid haddaaba aad reduce ka suganaysid marka adiga waxaa laga rabaa inaad suuqi baratid
si macnaha uu suuqa adiga kaaga hor imaan markasta dhinacuu aado raac haddaa maqasheen maamada trend is your friend markasta adiga trendiga saaxiib la noqo suuqan meeshuu aadayo haddaa saaxiib la noqotid khasaare mis arkaysaan laakiin haddii aad suuqi ka hor imaatid waxaa dhacaysa inuu suuqa adig ku aabayeeleynin oon adig ku aqoonin qof kale aqoonin injineer yaasir aqoonin maxamed uuna shaqo ku lahayn qof u yaqaano ma laha wuxuu yaqaanaa structure la bare marka anaga waxaan ku dadaalaynaa insha allah inaan structure la bare aan structure suuqa uu ku dhaqaaqo uu sameeyo aan barano kadibna aan ka shaqaysano aan faa'iido la taaban karana ka sameeyno guul waliba inaba aan caadi ahayn waxaan filayaa inaad qodobkaas aad u fahanteen oo aan kasii socon karno haddii qodobka labaad aan galno saan soo sheegnay waa 7 qodob qodobka labaad hadda asna u tagno bismillah sorry qodobka labaad hadda u tagno waxa waaye anything is possible in the market wax walba ayaa ku suurtooba suuqa maxaa loola jeedaa anything is possible in the market wax walba suuqa way ku suurtoobaan waxay uga suurtoobaan waxaa laga yaabaa dad inay sameeyaan tusaale ahaan trade ayaa wuxuu u dhawaa meel meeshan oo double top u dhawaa trade kan halkaan uu ka qaatay qofkan meeshan dhexe double top ka soo gaarin uu qaatay wax yar u soo dhaqaaqay faa'iido yar uu siiyay uu ka cishta markii faa'iido yar ka cistay asal intermuuna keensanin managementiga uma saxno wuxuu iskaga socdaa raji iyo waxba iskaga socdaa markaas wuxuu dhahay trade kan stop losskiisa halkaan uu ahaa tusaale ahaan intuu ka galay trade ku soo laabtay stop losskiisa u dhawaaday markaas wuxuu dhahay double top u dhow double top kan ma asal ku xirid korkiisa ma ka dhigtid yaa ku sheegay double top kan inuu suuqa ka soo laabanayo double top intuu saas markuu yahay suuqa waxa laga yaabaa intuu double top intuu imaado intuu jabiyo uu korkiisa correction ka sii galo inuu sii socdo yaa adig ku sheegay in double top kan suuqa ka soo laabanayo suuqa wax walba ka possible ka wax walba macquul ka marka adaha ku xisaabtamin oo suuqa ku qasbin inuu meeshaas ka soo laaban doono haddii uu ka soo laaban waayo hadhow taashalayn oo hadeen suuqa inuu iga soo jeedaa suuqa waxa ogaataa wax walba inuu possible yahay ku kalsoonow SL-ka meesha dhigatay ha ku dhaco meeqa trade oo inta SL-ka ku dhacaan ayaa hadana waxa arkaysaa intaasoo bib korsiyaad intaasoo bib SL-ka ama sirr leed mar walba waa maya intaad khasaaro badan gali leed oo golo khasaaro yar qof kasto oo ciladan ay haysatana uu ogyahay markasto SL-kaaga arritid trade-kaas SL-ku ku dhaca qof kasta weydii oo professional oo saas soo sameyn jiray mar walba SL-kaaga arritid ama SL-ka aad kordhisid ama aad ka furtid waa mar walba khasaaraha u dhowda marka wixii waad baratay ku kalsoono SL-kaaga aaminna marka haddii SL-kaaga dhaco alxamdulillah trade kale trade ma dhamaanayo maalin kasta oo trade janisi ay soo baxaan janiska labaad ka faa'iideysanay laakiin haddii akoonkaaga hal trade u gubtid oo dhaadid halka trade ilaa waa inaan ka faa'iideystaa oo lacagtii iga cunaa soo celiya de wax walba suuqa macquulka marka macquul ahaanshiyaha suuqa kaliya kaama tanaasula waxaan filayaa inaan qodobkaasna aan isla fahanay oo insha Allah aan kasii socon karno qodobka saddexaad haddii aan u tagno qodobka saddexaad waa qodob aad iyo aad muhiim u ah oo in badan aan ku soo celiyo laakiin dadka inay qaataan ku adag qodobkan saddexaad wuxuu ku leeyahay plan your trades trade kan inta aragta iska qaadanine horta ku sii xisaabtan isbuucan soo socdo ani maxaan sugayaa maxaan rajeynayaa maxaan damacsanayaa isbuucan soo socdo lacagteen rabaa inaan ka trade gareeyo horta waa inaan ogahay isbuucan soo socdo waa inaan ilaashadaa baan leeyahay euro USD NCD USD JBB JBY lacagahaas oo kale waa inaan ilaashadaan leeyahay lacagii aan isbuuca markuu bilaabanaya aan dhahayo lacagahaas ilaashanaya maba ilaalinayo waxaan suuqa dhan ilaalinayaa aniga waayo balaan ma lihiba balaankayga waa ka booday markastoo balaankaaga aad ka tagtid oo lacag aad isha ku heenin oo waxay sameynaysaa aad ogeyn aad ku soo kordhacday waxaa fudud lacagtaas inay aad ku khasaartid oo balaankaagana meeshaas aad ku burburisid ku xisaabtan markaste
trade plan samee, trade-ka aad qaadanaysid sii ogow, wiigan lacagaha aad la soconaysid sii ogow, lacagaha jaaniska aad ka rajeynaysid meel sii gasho, isha ku hay, top six sameyso, wilkaar sameyso, ku kalsoonow ayaga. haddii isbuucan jaanisku siin waayaan, isbuuca dambe jaanisyo fiican haddana abuuro, isku day inaad sugaysid. laakiin waxaa aragtay injineeryaal siroo qaadanaya GBY kuuguma jirin lacagaha isha ku hayst, waa iska qaadanaysa. waxaa leedahay lacagtan jaanisaa ka muuqdo, ninkaas ay dhahay waa iska qaadanaya, waa iska qaadanaa, waana ka faa'iidaysanaa, kuweygana waa ilaashanaa. lama rabo. kuwaaga ku kalsoonow, kuwaaga sugo, way ku dhaqaaqi doonaan waqtigu ilaahay yiraahdo, ku kalsoonow. marka trading plan-ka waa wax aad u muhiim ah. suuqa ruux rabo inuu long term ahaan ugu jiro waa inuu lahaadaa trading plan. waxaan filayaa inaad trading plan-kana fahanteen oo kasii gudbi doono insha allah. taasna haddaan kasii gudubno insha allah aan u tagno rulka afraad. waa 7 rule oo isku xiran, mid kaste gooni ayuu ku caawinaya insha allah haddii aad sida saxda ah aan u sharaxayna aad u fahantid oo adigana aad sii baartid insha allah. kan afraad waxaa waaye, waa kan asna qaybtan aad u muhiimsan tahay sidoo kale, waa play the probability game. gamekan aan ku jirno ama hawshan aan ku jirno ama shaqadan aan ku jirno ee ah in wax aan analyze gareyno, intaan lacag analyze gareyno, aan lacagtiisa u analyze gareyno inay aad aan jecelnahay oo aan faa'iido ka sameyno. waa probability iyo possibility wax Allah la isticmaalaa, wax la hubo ma aha. maanta nin dhihi kara ma laha in balsi hadduu soo dhaco wuxuu sameyn doonaa tight flag, ama wuxuu sameyn doonaa large flag, ama wuxuu sameyn doonaa maxaan ku dhahay steep flag. qof dhihi kara ma laha, qof dhihi kara ma laha in balsigan intaasuu socon doonaa, dhihi kara ma laha. waxaan lagu sheegaya arkaysid suuqan double top uu imaaday, double topkii correction ku tagay, wuu soo laabanaya, inuu soo laabanna marka qaar laga yaaba. waxaan dhan la sameynaya arkaysid waa probability iyo possibility, waa inaad ku xisaabtantaa. marka see suuqan ugu guuleysan kartaa, waa inaad leedahay risk management, waa inaad leedahay discipline, waa in psychology-ga uu dhisan yahay, waa in trade-yada ay trade-yo aad adiga analyze gareysatay oo isha ku haysay ay yihiin, waa in wax walba oo adiga oo suuqan dhinaciisa ka imaan karo uu ku diyaarsan yahay oo u diyaarsan tahay, oo aad tahay qof u soo jeedo probability-gi possibility-giisa og. suuqa meesha ugu macquulsan halkan waxaa ku yaalo kaleeto, inta waxaa ku yaal trillion. hadda halkan saa u dhigano oo lacag meesha intay imaatay, mar labaad laabatay, mar kale imaatay, laabatay, lacagtan waxay sameyn kartaa 1 2 3 halkaa way ka sameyn kartaa. double topkana way ka soo laaban kartaa haddii qaab lagu tago corrective, haddii lagu tago way ka soo laaban kartaa. marka intii taas aan la gaarin ka hor waa inaad hortan ku xisaabtantaa, war inta maxaa ka dhici karo, possibility inta ka dhici karo iyo probability waa inaad isku fiirisaa. meeshan hore double topkan soo lacagta lagama soo celin kara, haa double top confirmation haddaan ka helo insha allah waa qaadanaya. haddii laakiin halkaa keliya kora iska sugatid, kana aad ka warheenin oo suuq inta imaado confirmation ku siyaado ogeen uu soo daato oo dhahdaan halkaas ka sugay maxaa dhacay suuqan, maxaa iska daadanaa, inuu suuqan see uga shaqeysanaa, suuq la fahmi karo ma aha. marka hore taada u fikirin qaab probability possibility labadaba leh, waa inaad u fikirtaa probability iyo possibility wax la dhaho. waxaan filayaa ayadan inaad si fiican u fahamteen oo tusaale cajiib aan idiin soo qaatay oo insha allah wax badan ayadan aad ka faa'iideen. probability possibility-gana waa xubin aad u weyn ayay ka tahay gamekan aan ku jirno ama suuqan. insha allah ayadan waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. waxaan usii socon doonaa rulka shanaad oo ah half an edge. maxaa laga wadaa half an edge? maxaa laga wadaa, maxayna tahay half an edge? waxay tahay ina aad taqaanid waxa aad raadinaysid. the more you know what you want, the more you will get what you want. markaste ood og tahay waxa aad raadinaysid, waxaa fudud inaad heshid waxa aad raadinaysid. waxaan ka wadnaa haddii tusaale aan soo qaadano, waxaa la joogaa high value area la joogaa. lacag ayaa waxay ku samaysay high value area,
ay waxay ku sameysay three tag within pattern ku sameysay pattern within pattern waxa dhacdaniyo ani pattern within pattern kan ma ku kalsooni lacagtan waxaan ka rabaa inay intee imbalse yar soo sameyso 15 minutes flag siiso waa waji 15 minutes flag hadii siin weyso waa inay siisaa 1 hour flag dhameystiran marka hadii aan sii wadano codkayga hargaba yara jira insha Allah raali hada waxaan filayaa inuu si fiican isu gaaro waxaan dhahnay waxaan rabaa in aan helo 15 minutes flag am 1 hour hadii labadaas aan heli waayo suuqa haduu xataa dhaqaaqo kumbi shaqo kumali oo suurab ha u dhaqaaqo waxaan garanayaa markaas waxa aan raadinayo waxaan helay flagiya helay 15 minutes flag inta 1 hour dhicinba 15 kan ka qaatay suuqu isoo dhaqaaqay oo isi daatay inta flag kalaan ka helo 1 hour asna waan ka sii qaatay taas maxay ii fududay waxaan ogaaday waxa aan u baahanahay horta markasta ogtahay waxa aad rabtid waxa fudud inaad heshid waxaan filayaa inaad fahanteen sharciga shanaad oo insha Allah waan ka sii gudbi doono hadii sharciga lixaad asna aan u gudubno sharciga lixaad muxuu leeyahay let you edge play out let you edge play out ayadana waxay tahay wixii aad raadinaysid markaa heshid flagii baad heshay 15 minutes flag aad raadinayna dhahnay waxaan joognay meel kore ama 1 hour flag waa helnay trade ku waa qaadanay wuxuu ku leeyahay ha ku dhaqaaqee faraha ka qaad ha qasbin trade-ka waxa laga yaabaa inuu correctives kaga dhaqaaqo asoosan u daato waxa laga yaabaa inuu imbalse ku dhaqaaqo oo dhaqaaq aan caadi ahayn sameeyo marka qaab ku rabo asaga ha u dhaqaaqee time c oo wixii aad raadinaysid maadaama aad heshay wixii ha ku shaqeeyaan dhaaf dad waxa arkaysa dhahayo suuqa uu saxan yahay laakiin uu suuqa ma socdo oo iskaga baxaya oo suuqa du ku saxan yahay uu socdo ma hal mar waxa rabtaa inaa kumbi ku dhaqaaqo waa may hal mar kugu dhaqaaqay hal daqiiqo midna marka wixii aad raadinaysid waa heshay wixii waxa raadinaysid waa ogeed kow wixii aad raadinaysid heshay wixii aad raadinaysid marka heshay waa inaa ogolaatid inay ku shaqeeyaan hadii wixii aad raadinaysid inay ku shaqeeyaan aadan ogoleen see marka waa aad ku gaaraysaa heerka aragtid see waxaan aad wax uga helaysaa qof waxa ahayd oo banaankaaga ku shaqeeyay wixii aad raadinaysaa heshay flagiya heshay trade-ka waa qaadatay trade-ka dhaaf SLTB oo sameystay ku kalsoono hadaba ordin maanta dhan trade forecast fiirin maanta dhan kanalkii dhaqaaqaa kanal baa furmay ama uu soo laabtaa kanal seel furmay ha uu daadana hadhihin suuqa dhaaf isku day inaad waqtiga kale ka faa'iideysto inaad buugaag akhristid inaad cilmiga iska sii dhistid inaad casharada dib ugu laabatid revision ay samaysid saas laga rabaa inaad u faa'iideystid ma aha inaad wixii aad heshay aad daba taagnaatid waxaan filayaa inaad ayadana fahanteen casharka inuu dheeraado ma rabo waxaan rabaa cashar yar oo kooban oo macquul ah oo waxna laga faa'iido haddii la yiraahdo haddii aan u tagno rulka toddobaad oo ah rulka u muhiimsan oo dadka intooda badan ay ka tagaan rulkan haddii aad fahantid waa rulka kaa dhigi kara inaad noqotid qof kalsooni qabo oo rulka muxuu noo sheegayaa marka trust the process waxa dhan ee aad soo sameysay ee aad soo baratay ee intaas aad ku celcelinaysay ee aad u fadhiday isku day inaad aamintid waxa aragtay suuq structure ku sameeyay 1 2 3 candle confirmation ku sii haddana aadan qaadanayn oo ka cabsanaysid waxaan dhan waa taqaanaa meesha ka dhacay oo wixii waa reversal ku heshay confirmation heshay waa aragtay suuqii inuu jihadii u saxantahay haddana waa ka cabsanay waxa leedahay kan waxa laga yaabaa intuu wax yar ku dhaqaaqo inuu asal kaga dhaco markaas ku haleeniyo kan iska sug arag horta inuu maanta baraawe maanta du si fiican u dhaqaaqo hadda kadib waa aaminay markaas intay dhaqaaqdo lacagtii waxa before afterkeeda haysaa waxa leedahay lacagtan anaa la isgarey mana ka faa'iideysan wallahi billahi good and nazar ah laakiin profitable me waa waxa dhaca suuqa maalin kasta ka dhaco oo qof walbana ku dhaco
inta dadka u badan ilaa in yar oo macnaha ilaahay u fududeey ma ogi marka isku day inaad noqotid good analyzer and good profitable trader laakiin analyzer kaliya haddaad noqotid meesha sawir looma imaan walaal inaad wax iska sawirato waxba kuma kaama anfacayso akoonkaaga lacag ma gelinayso mastercardkaagana intaa qaadatid wixii aad sawirto kulama soo bixaysid waxa ku anfacayo waa inaad faa'iido intaa samaysid faa'iidadeeda aad waqti ku qaadatid kaga faa'iidaysatid noloshaada cibaadadaada ilaahay ugu dhawaatid waalidkaaga ka caawisid marka processka waa inaad aamintaa waa inaad ku celcelisaa inta badan in badan markaa wixii ku celcelisid kadib way kaa dhaadhacayaan experience-ga lagu sheegay waxaa waaye in wixii in badan uu qofkan waxaan ku khasaaray waxyaaba badan uu arkay marka waxaan rajeynayaa inaad cashirkan fahanteen oo wax badan ay ka faa'iideen insha allah casharaan badan oo qiimo leh oo xiisi idin gelin doono wax badanna tradingkiina level kala geyn doono insha allah waa soo wadnaa channelka subscribe hala saaro comment like and share and commentiga insha allah su'aalaha wixii aad ka fahmaysaa ku soo qor insha allah waa ka soo jawaabi doonaa walaalaha anaga midka ahayn telegramka ku soo biiraan udani fx insha allah waxaan rajeynayaa inaan walaalo kale nasiin gaarsiisaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته